Waa maxay sababta aadanuhu u timo leeyihiin sida naasleyda kale? Waa kan sayniska. Weligaa ma isweydiisay sababta aadan u yeelan timo qaro weyn oo u daboolaya jirkaaga oo dhan sida ay, bisad ama gorilla? Aadanuhu maaha naasleyda keliya ee leh timo yar. Maroodiga, wiisha iyo jiirka dooliga qaawan ayaa sidoo kale leh timo aad u yar. Waa run qaar ka mid ah naasleyda badda, sida nibiriga iyo dolphinyada sidoo kale. Saynis yahanadu waxay u malaynayaan in naasleyda ugu horreysa ee noolaa wakhtiga dinosaurs ay ahaayeen kuwa timo badan. Laakiin in ka badan 100 milyan oo sano, gacan yar oo naasley ah oo ay ku jiraan aadanaha ayaa u xuubsiibtay timo yar. Waa maxay faa'iidada ay leedahay inaadan korin jaakada dhogorta? Waxaan ahay biology oo daraaseeya hidda socodka xakameynaya timaha naasleyda. Waa maxay sababta aadanuhu iyo tiro yar oo naasley ah oo kale ay timo laan yihiin? Waa su'aal xiiso leh. Dhammaan waxay ku xiran yihiin in hiddo-sidayaasha qaarkood la shido ama la damiyo. Faa'iidooyinka timaha. Timaha iyo dhogorta waxay leeyihiin shaqooyin badan oo muhiim ah. Waxay diiriyaan xayawaanka, waxay ka ilaaliyaan maqaarka qoraxda iyo dhaawacyada, waxayna ka caawiyaan inay ku dhex milmaan agagaarkooda. Waxay xitaa ka caawiyaan xayawaanka inay ogaadaan deegaankooda. Weligaa ma dareentay xajin markii ay wax ku dhow yihiin inay ku taabtaan? Taasi waa timahaagu kaa caawinaya inaad ogaato waxyaabaha ku dhow. Baniaadamku waxay leeyihiin timo jidhkooda oo dhan ah, laakiin guud ahaan way ka yar yihiin oo way ka qurux badan yihiin tan xigtadayada timaha badan. Waxaa xusid mudan in timaha madaxeena ku yaal, kuwaas oo laga yaabo inay u adeegaan inay madaxa ka ilaaliyaan qoraxda. Dadka qaangaarka ah, timaha dhumuc weyn ee ka soo baxa gacmaha hoostooda iyo lugaha dhexdooda waxay u badan tahay inay yareeyaan maqaarka waxayna caawisaa qaboojinta iyadoo kala firdhisa dhididka. Markaa timuhu waxay noqon karaan kuwa faa'iido leh. Waa inay jirtay sabab xoog leh oo kobcineed oo dadku ku luminayeen wax badan oo ka mid ah. Maxay tahay sababta bini'aadamku u lumiyeen timahooda? Sheekadu waxay bilaabatay qiyaastii 7 milyan oo sano ka hor, markii aadanaha iyo chimpanzees ay qaadeen dariiqooyin horumarineed oo kala duwan. In kasta oo saynis yahanadu aanay hubin karin sababta bini'aadmigu u noqday timo yar, haddana waxaan haynaa aragtiyo xooggan oo dhididka ku lug leh. Bini'aadamku waxay leeyihiin qanjidhada dhididka oo aad uga badan kan chimps iyo naasleyda kaleba. Dhididku wuxuu kaa dhigayaa qabow. Marka dhididku ka soo baxo maqaarkaaga, tamarta kulaylka ayaa laga qaadaa jidhkaaga. Nidaamka qaboojintani waxay u badan tahay inuu muhiim u ahaa awoowayaashii hore ee bini'aadamka, kuwaas oo ku noolaa safana kulul ee Afrika. Bini'aadamku waxay leeyihiin hab qaboojin gudaha ah. Sense tabcanfa. Dabcan, waxaa jira naasley badan oo ku nool cimilo kulul hadda kuwaas oo daboolay dhogorta. Bini'aadmigii hore waxa ay awoodeen inay ugaarsadaan noocyadan xayawaanka ah iyaga oo ku daaliyey daba socod dheer oo kulaylka, xeeladda loo yaqaan ugaarsiga joogtada ah. Aadanuhu uma baahnayn inay ka dheereeyaan xayawaanka ay ugaarsadaan. Kaliya waxay u baahdeen inay sii wadaan ilaa uu ugaadhkoodu aad u kululaado oo ay daalaan inay cararaan. Awood u yeelashada dhididka badan, iyada oo aan lahayn jaakad timo ah, ayaa ka dhigtay adkaysigan suurtogalka ah. Hiddo-sidayaasha xakameeya timaha. Si loo fahmo timaha naasleyda, kooxdayda cilmi baarista waxay barbardhigeen xogta hidda socodka ee 6 naasley oo kala duwan, min bini'aadamka ilaa armadillos ilaa eeyaha iyo dabagalayaasha. Markaan isku dhejinay dnada dhammaan noocyadan kala duwan, waxaan awoodnay inaan eber ka saarno hiddo-wadaha ku xiran ilaalinta ama luminta timaha jirka. Waxyaabihii badnaa ee aanu samaynay waxa ka mid ah, waxa aanu baranay in aadanuhu ay weli wataan dhammaan hiddo-wadaha looga baahan yahay jaakad timaha ah, waa la damiyey ama damiyey. Sheekada quruxda iyo bahalku wuxuu ku daboolan yahay dhogor qaro weyn oo u ekaan kara khiyaali saafi ah. Laakiin nolosha dhabta ah, xaaladaha dhifka ah ayaa dadka ku keeni kara inay timo badan ka baxaan jidhkooda oo dhan. Xaaladdan oo loo yaqaan hypertrichosis waa mid aan caadi ahayn, waxaana loogu yeeraa werewolf syndrome sababtoo ah dadka qaba sida ay u eg yihiin. Sawir faahfaahsan oo nin iyo naagis garab taagan oo wata dhar taariikhi ah. Ninka wejigiisa timo ayaa ka daboolan, halka naagta aysan ahayn. Petrus Gonsalves iyo xaaskiisa, Aterine, oo uu rinjiyeeyey Joris Hofnagel, qiyaastii 1575. National Gallery of Art. Sanadihii 1500 aadkii, nin Isbaanish ah oo la yiraahdo Petrus Gonsalves ayaa ku dhashay hypertrichosis. Markii uu yaraa waxaa loo soo diray qafis bir ah sida xayawaanka oo kale Henry ee Faransiiska hadiyad ahaan. Wax yar kadib markii uu boqorku ogaaday in Petrus uu la mid yahay qof kasta oo kale oo wax la baran karo. Waqti kadib, wuxuu guursaday gabadh, isaga oo abuuray dhiirigelinta sheekada quruxda iyo bahalka. Iyadoo ay u badan tahay inaadan weligaa la kulmi doonin qof leh sifadan dhifka ah, waxay muujinaysaa sida hidda-sidayaasha u horseedi karaan isbeddello gaar ah oo la yaab leh oo ku yimaada koritaanka timaha. Maria Tikina, kaaliyaha brofesor ku takhasusay xisaabinta iyo biolojiga nidaamka, Jaamacadda Pittsburgh.
Maqaalkan waxaa dib looga daabacay wadahadalka oo hoos imaanaya shatiga hal-abuurka guud. Akhri maqaalka asalka ah.